amahan dadkaygo runta dhabada laga diro anka agarane ciidena hodanka mawsara kanayo beeraha masaracna amahan dadkaygo runta dhabada laga diro anka agarane ciidena hodanka mawsara kanayo beeraha masaracna daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka wax soo saarka beeraha qaran walba horumarkiisa wax laga qiyaasa waxa uu soo saaro ciidamada Somaliland kaliya kuma hawlana sugidda amniga iyo sidoo kale nabadgelyada balse waxay qayb ka yihiin wax soo saarka uu qarankani ku doonayo isku filnaanshaha halkani waa banka mashruuca Wajaale oo ciidamada kala duwan ee Somaliland ka beeraan dalagyo kala duwan balse halkani waa qaybta ciidanka booliska Somaliland ay wax ka beeraan si ay u soo saaraan cunto ku filan ciidanka booliska Somaliland amahan dadkaygo runta dhabada laga diro anka agarane ciidena hodanka mawsara kanayo beeraha masaracna amahan dadkaygo runta dhabada laga diro anka agarane ciidena hodanka mawsara kanayo beeraha masaracna aqligo shaqeeyo cududaynu maala aqligo shaqeeyo cududaynu maala ay lagaga baxaya beeraha masaracna waxaana ay halkani ka beeraan dalagyo kala duwan oo iskugu jira galeyda hadhuudhka basasha iyo sidoo kale harakooga wana talaabada taliyaha guud ee ciidanka boolisku ku doonayo in ciidanka boolisku ay ka gaadhaan isku filnaansho dhinaca cuntada isla markaasna ay soo saaraan cunto ku filan ciidanka booliska ee Somaliland talaabadaasina waa mid hadda si xawliya uga socota banka mashruuca Wajaale ee ciidamada boolisku wax ka beeraan xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxa kamid ah ballanqaadadii xukuumadda ee hadda hirgalay kor u qaadista wax soo saarka beeraha iyo soo saarista cunto ku filan waana mid xilligan riyadeedu run ku dhowdahay xilligan riyadeedu ay run ku dhowdahay shacab bulsho dawlad iyo ciidanba waxa loo dhaqaaqay wax soo saarka beeraha iyo soo saarista cunto ku filan qarankan Pero
loo gaadhsiiyo isku filaansho dhinaca cuntada ah isla markaasina qarankani uu gaadho inuu waxa uu soo saaro u dhoofiyo dalalka kale ee caalamka. sidoo kale ciidanka boolisku marka laga yimaado wax soo saarka waxay halkani ku tababaraan fardo kala duwan oo loo tababaro inay qayb ka noqdaan amniga. sidoo kalena farduhu waxay ka mid yihiin haybada qaranka. ciidamada boolisku waa kuwa tacabgeliyey wax soo saarka beeraha iyo sidoo kale dhisidda haybada qaranka. beeraha ma saracna waa ka Sheekh Maxamed oo ka waramaya banka Wajaale waxay ka beeraan. bismillaahi raxmaani raxiim. halkan waxaan ku soo dhaweynayaa jananka ciidanka booliiska oo run ahaantii ahmiyad qaaliya siiyay wax soo saarka mashruuca booliiska taasoo nagu dhiirigeliyay inaan soo saarno wax soo saarkii ugu badnaa run ahaantii markaad eegto sanadkan maanta dhinaca basasha hadday noqoto dhinaca galleyda hadday noqoto laba jeer iminka baaqbaaq ahayd iyo tii aanu soo jarnayba ay sidaa noola dul taagan yahay. dhaqaale hadday noqoto waana hadday tahay way aragnimo hadday tahay wax hooga tusaaleyn hadday tahay markaa taliyaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. buuqashadiisana noogu yimidna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. isagoo jimco walba inta badan noo yimaado mar walba eega halkaan wax marinayno oo naydhaa taas sidaa u toosiya taana sidaa u hagaajiya. midda kale waxa maanta uu ku darayaa sanadkii dhawaa wuxuu u furay tababarka 30 faras in la tababaro amar nagu siiyey. 30kii faras ayuu maanta xadhiga ka jarayaa tababarkiina wuu u dhammaaday. taliya sidaad aragtayna biyaha ballayga ayay sidaa u dhex jiirayaan u dhex marayaan. waxaan u tababarnay 2 nuuc taasoo u tababarnay eriyadka lagu eriyanayo sida roondada loogu qabanayo iyo sida biyaha ay u dhex marayaan ee ay biyaha aanay uga gabanayeen ballayga haddii xitaa tuugu dhex galo u dhex marayaan. 2 nuuc baan u tababarnay waana taliya aragtay. taliya waan kugu soo dhaweynayaa si weyn baan kugu soo dhaweynayaa mashruuca ciidanka booliiska iyo wax soo saarka adiguba maraga ka tahay ee dul taagan tahay saadi badan. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha guud ee ciidamada booliska Somaliland Maxamed Aadan Saqadi Dabagale waxaana uu yiri ilaahay baa jalla wa ala mahad oo dhan leh islaam inaga dhigay nimcooyin badan oo aynaan tirin karayna siiyay ayaynu mahadnaqaynaa. waxa runtii uu socodkaygan maanta 22 Oktoobar 2021 aanu halkan ku nimay maanta bankan Wajaale qaybta ciidanka booliska maaragtay uu mas'uulka ka yahay ee ay dawladdu leedahay. socodkayagii caadiga ahaan buu ka mid yahay. waxaanu doonaynaa inaanu indhaindhayno ama aragno bankan oo dhulkeena nimca fadhidee haddii laga shaqeeyo nimca badan ka soo baxayso oo aanu doonaynaa in beerahan aynu cunto badan ka soo saaro ayaanu maaragtay wixii sanadkan soo baxay baanu doonaynaa inaanu aragno. 3 cagaf baanu marka hore halkan ku diyaarinay oonu doonaynaa bankan in laga shaqeeyo. fadliga ilaahay wixii la qoday si fiican bay u baxeen. waxa lagu qiyaasayaa imika dadka wax qiyaasa ama wax qaybta la jaray iyo qaybta ku taala marka la isu geeyo haruur ilaa 2 kilo kiish inay ka bixi doonaan. maaragtay ganleydana ilaa 1500 kiish inay ka bixi doonaan. harakooga ilaa 500 kiish inay ka bixi doonaan. basashana ilaa 2 kilo gadbadood inay ka bixi doonaan oo isugu jirta qayb imika la jaray iyo qaybta dambe insha Allah imika gacanta lagu hayo. waxaan isleeyahay tamar xumada iyada uun bay ka mid tahay
haddii aanu dadaali lahayn oo cagafyadii baanu haysanay ciidankiina waanu haysanay dhulkiina annaga alo waa haysanay 11 kilomitir ballarka u weeye dherarka u weeye dhinaca ballarkana waa 10 kilomitir haddaanu xataa kala badhuun qodi lahayn waxaan isleeyahay ciidamada Soomaaliland oo raashin ka bax raashin ku filan baa ayaa ka goy lahaa laakiin fadliga Ilaahay wixii yaraan ku beeray intaas ka soo baxday askarta joogtay dadaal bay muujisay insha Allah imika istiraatiijiyad weyn baanu samayn doonaayo oo maartay aan lagu soo saaro cunto ciidanku insha Allah uu cuno raashinka ka soo baxa waxaan haruurka iyo arabkhida la yiraahdo dhan dadka anaga maartay qandaraaska dawladda kula jiray maartay qabandida askarta aan uga qaadno bishii ayaa intaanu ka iibino ayaanu anagu qaadan doonaa lacagtiina waanu qaadan doonaa labadiiba oo maartay iyagu lacagtii qandaraaskana anaga lacagtiina wayna siin doonaan oo calaakiish baan uga iibin annagaana ka iibsano maartay dib u isticmaali doono raashinka cusub soo baxay ciidamada booliska ee dib u isticmaali doona kal horeba saasa dhacdo waa sameynay marka insha Allah hadii maartay wadankeenana hadaynu dadaalo wax badan baa ka soo baxaya waan ku jahaynayaa dadka dhulka sidii madaxweynaha istiraatiijiyada madaxweynaha ahayd inay dadku beertaan waliba ciidamada kala gedisan beertaan milatarigu uu leeyahay asluubtu way leedahay madaxtooyadu way leeyihiin boolisku uu leeyahay bankan uu qaybsan yahay qolo walba shaqaynaysa oo beertaan aad iyo aad ugu dardaareen waxa kale runtii maartay iyaduna aan halkan maanta xariga kaga jareynaa 350 faras baa halkan jooga 30 kamid ah baa la tababaray 9 bilood 10 bilood ka hor baan halkan ugu furay 30 kiyo maanta qalin jabiyay oo 10 kamid idin hor joogan ayaanu maartay oo calaamaduna aan u laakiin 30 kama inta la fuulay la eriyo ayaanu xariga ka jareynaa laba faa'iidaan uga jeednaa mar waa quruxdii waanu korinaynaa fardaha waanu badinaynaa insha Allah waanu maartay meel badan oo boolisku leeyna waanu geyn doonaa mar waa quruxdii qaranka oo sidaa waanu u ilaalinaynaa oo iyagu bariyaha mid dabargo ayay waanu korin doonaa waanu barbaarin doonaa midda labaad security-ga qayb weyn bay ka noqonayaano meelaha luuqluuqyada ee aanu gaadiidku gali karin oo dhan ayay gelayaan qof kasto israa dhuumo wuxuu doonaha ahaado oo maartay hagardaamo wada luuq kasta way maartay way ka daba gali karayaan nabadina waxbay ka tarayaan hadalka marka la isku daro aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa raggan halkan banka jooga oo maartay aad iyo aad u dadaalay oo cuntada badan iyo waxa beeraha badan diyaariyay fardahan diyaariyay iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa guud ahaan waxaan leeyahay waa guul aynu gaari karno talaabo kasta aynu qaadno wax guul baynu ka gaari karnaa fardahana 5-6 baan noo tababaraa imika 30 maanu marinayna 20 bay ahayn 350 maanu marinayna beertana tijaabooyin baanu qaadno waa ku guuleysan waxaan filaynaa istiraatiijiyada labaad ee imika dhisi doona insha Allah in aanan raashin iibsan doonin hadii alla yiraahdo ilaahayna roobka noogu roonaado balliyada waaweyn baanu leenahay ijiimadii baanu leenahay tuumbooyinkii baanu leenahay 12 bilood hadaan xataa bacadhigno 3 balliyo waaweyn biyo way ku jirayaan marka waanu ka maarmi karaa walaa riig walaa wax kasta taana waa u diyaar garoobayna insha Allah salaamu calaykum amahan dadkaygo cunta dhabada laga diro anka agalaane ciidena hodanka mawsara kanayo beeraha masaracna amahan dadkaygo cunta dhabada laga diro anka agalaane ciidena hodanka mawsara kanayo beeraha masaracna beeraha masaracna aqligo shaqeeyo cududaynu maala aqligo shaqeeyo cududaynu maala ay lagaga baxaya beeraha masaracna
markuu curteeda cadilkee shubo inta biyaha celisaan cirifyada badaha gala beeraha ma salacna cirku markuu curteeda cadilkee shubo inta biyaha celisaan cirifyada badaha gala beeraha ma salacna wax kastoon cunaynana cadiyo caalamooye carra kalan ka keenay beeraha ma salacna wax kastoon cunaynana cadiyo caalamooye carra kalan ka keenay beeraha ma salacna wax kastoon cunaynana cadiyo caalamooye carra kalan ka keenay daawadayaal waxaan intaasi kusoo gabagabinayaa barnaamijkan kaga hadlaynay banka mashruuca wajaale dadkaygo cunto dhabaada laga diro aan ka caganaane ciidena hodanka mawsala kacnaayo beeraha ma salacna amahaan dadkaygo cunto dhabaada laga diro aan ka caganaane ciidena hodanka mawsala kacnaayo beeraha ma salacna